bayloodkii Maraykanka ah ee badbaadintiisu ay khasaaraha badan geysatay. Qisadiisu sidee bay ku bilaabatay, sidee bay u dhacday, maxayse ku soo gabagabowday? Dalka Maraykanka ayaa go'aan waxa uu ku gaadhay in uu weerar ballaaran oo xagga cirka ah ku qaado dalka Iiraan, isagoo oo dhayalsanaya difaaca cirka ee dalkaasi Iiraan, isagoo oo doonaya inuu taargetyo muhiim u ahaa uu soo burburiyo oo cardaadiqaha ka soo dhigo, doonayana inuu cagta soo mariyo. Waxa uu weerarka ku qaaday 7 diyaaradood. Saddexda hore operation-kay fulinayaan, saddexda dambena waxbay ilaalinayaan. Bartankana waxaa socota diyaarad weyn oo raadaar xambaarsan, tashuushna ku furaysa raadaarada dalkaasi Iiraan si aanay u ogaanin in operation-ka la fuliyeyba, iyadoon la ogaanin. Hase yeeshee gudaha markii cabaar loo galay ayaa Iiraan ogaatay, isla markiibana gantaalay soo turtay. Mid ka midna gantaalkii ayuu ku dhacay, halkaas diyaaradii baa ku soo dhacday. Laakiin dhayalsigii Maraykanku uu dhayalsanayay ciidamada cirka ee Iiraan ayaa waxa uu sababay in ay diyaaradihii dib u soo yaacaan, waayo waxay moodayeen iyagoo aan la ogaanin in ay fulin karaan operation-kan oo tashuush ku furi karaan raadarada dalkaasi Iiraan. bayloodkii meesha ku dhacay waxaa loo diray diyaarad weyn oo tashuush ku furaysa raadarada dalka Iiraan iyo 2 helikobtar oo doonaya in ay ninkaasi soo badbaadiyaan. hase yeeshee cabaar markii ay gudaha u galeen dalkaasi Iiraan ayay mar labaad raadaradii baraarugeen oo ogaadeen in hawadii la soo galay. dagaalkii ay ku qaadeen iyo diyaaradahaas ay difaacayeen bayloodkii meesha ku dhacayna shacabkii ayay u sheegeen in qofkii soo hela ay $60,000 siinayaan. dalka Iiraan ayaa ballan qaaday $60,000 in ay siinayaan qofkii shacab ee soo helo. shacabka ayaa kaymaha ku yaacay iyagoo ugaarsanaya ninkii oo doonaya inay fursadda dhaqaalaha ka faa'iidaystaan. Maraykanku si geesinimo leh ayuu u dagaalamay isagoo oo weli ku jira difaacii iyo badbaadintii bayloodkaasi. Iiraanna difaacii cirka ayaa dagaal ba'an galay, isla markiiba waxaa loo diray diyaarad kale oo gurmada Maraykanku soo diray oo qaali ah. markii ay hawada soo gashay ayaa gantaal laga horkeenay, way dhaawacantay, waxayna u carartay xagga iyo Kuwait. airportka inta istiri fadhiiso meeshaas ayay ku soo dhacday. bayloodadii saaraan halkaas ay ku geeriyoodeen. labadii diyaaradood ee helikobtarka ahaa iyo tii tashuushka furaysay sidii bay u dagaalamayaan, laakiin mid ka mid ayaa la soo riday. Maraykanku weerar ballaaran oo ilaa 7 diyaaradood uu geliyey, isla markiibana diyaaradii tashuushka furaysay iyo 1 helikobtar ayaa dib u soo noqday. isla markiiba gantaalihii iyo weerar ballaaran ayaa haddana lagu qaaday dalka Iiraan, way isdifaaceen. runtii dagaalkaasi wuxuu noqday dagaal ballaaran oo cirka ah oo saacado socday. bayloodkaasina waxa uu ku dhumaalaysanayay keymaha, ugu dambeyntiina waa la badbaadiyey. runtii Maraykankuna geesinimo ayuu muujiyey iyo in uu badbaadiyo bayloodkiisa. Iiraaniyiintuna waxa ay muujiyeen difaacooda cirku in uu halis yahay oo uu Maraykanka iyo cid walba u bacbaadhigi karo. meesha waxaa ku jirta lafteeda dalka China iyo Ruushka oo doonaya in ay Maraykanka meeshan ku burburiyaan oo ku fashiliyaan, iyadoo oo Ruushku uu ka aarsanayo godobtii ka dhaxaysay Maraykanka ee ahayd in Ukraine Maraykanka ay taakula ka helaysay, iyadoo oo Ruushka dagaal gudaha loo soo geliyey oo Ukraine lagu mashquuliyey oo dhaqaalihiisii iyo siyaasadiisii iyo militarigiisiiba lagu burburiyey. wuxuu doonayaa markaa Ruushku in uu sida Ukraine loogu mashquuliyey uu Maraykanka Iiraan ku mashquuliyo, iyadoo China uu doonayo in uu ogaado awoodda Maraykanka oo ay meesha ku burburto. dagaal badan oo ishuwan ayaa meeshaasi ka dhacay, laakiin waxaa geesinimo muujiyey ciidamadii Maraykanka ee bayloodkooda qiimihiisa kor u qaaday ee rabe inay badbaadiyaan, iyo geesinimada dalka Iiraan iyaduna ay doonayeen in ay Maraykanka jilbaha dhulka u dhigaan. Maraykanku maalintaa waxa uu ogaaday in ciidamadiisa cirku aanay kaba awood badnayn ciidamada cirka ee Iiraan. isla wixii maalintaa ka dambeeyey ciidamadii cirka ee Maraykanku iyagoo oo taxadaraya ayay ka digtoonaadeen in mar dambe fursaddaas oo kale lagu helo. halka ciidamadii badda ee Maraykanka laftoodu iyo maraakiibta waaweynada dagaalka in qudhooda la dhaawacay oo ay eriyadii ka tageen. marka ciidamadii badduna waa guulaysan waayeen, kuwii cirkuna waa guulaysan waayeen, infantryna meeshii waa lagu geli kari waayey. dagaalkiina wuxuu noqday dagaal haddii laga baxana burbur keenaya, haddii lagu jirana burbur keenaya. runtii ilaa iyo hadda dagaalkaas lamana joojin, lamana wado. wada hadalladiisina way fashilmeen. ugu dambeynna China iyo wadama isku dayay inay dhex galaan. Pakistan baa ku fashilantay, wadamo badan baa isku dayay. marka dagaalkaas ilaa iyo hadda muu joogsanin, wuu socdaa haddana ma socdo.